Xidiga kubadda cagta ee kooxda Manchester City iyo xulka qaranka dalka Norway Erling Braut Haaland ayaa waxa uu ku soo biiray boqolka qofood ee ugu sarreysa canshuur bixinta waddanka Ingiriiska. Wargeyska The Times oo sanad walba soo saara liiska boqolka qofood ee ugu badan ee bixiya canshuurta waddankaasi ayaa waxa uu sanadkan ku soo daray 25 jirkan u dhashay Norway, kaa oo la sheegay in uu yahay qofka ugu da'da yar ee bixin doona canshuur aad u tiro badan. Haaland ayaa lagu soo waramayaa in uu sanadkan cashuur ahaan u bixin doono 16.9 milyan oo geniga sterlinka waddankaasi ah oo u dhiganta 224 milyan oo koronka Norwejiga ah, waxaana lagu soo waramayaa in uu kaalinta 72 kaga jiro boqolkan qof ee canshuurta ugu badan waddankaasi bixin doonta. Si taa lamida waxaa ku jira boqolkan qofood oo kaalinta 81 soo galay Mohamed Salah oo u dhashay waddanka Masar una ciyaara kooxda Liverpool, kaa oo lagu soo waramayo isaguna in uu sanadkan bixin doono adduun lacageed oo gaarayo 14.5 milyan oo geniga sterlinka ah. Haaland ayaa waxa uu sanadkii tagay January la saxiixday heshiis cusub kooxda Manchester City ee uu ciyaaro. Heshiiskan uu kula sii joogi doono kooxda Manchester City ilaa iyo 2034 ayuu Haaland ku qaadan doonaa isbuuc kasta adduun lacageed oo gaaraya 500,000 oo geniga sterlinka ah oo u dhiganta 6.6 milyan oo koronka Norwejiga ah, waxaana intaa u dheeraan doonto lacago kale oo abaalmarino iyo xayeysiimo iyo sidoo kale sawiradiisa ah. Liiskan boqolka qofood ee canshuur bixiyaasha ugu sarreeya waddanka Ingiriiska ayaa waxaa hogaaminayo walaalaha Fred iyo Peter Doni, kuwa oo shirkadooda qamaarka ku taajiray kuna hela lacagaha ugu badan ee sanadkan, waxaana lagu soo waramayaa in ay bixin doonto adduun lacageed oo gaarayo 4 bilyan oo geniga sterlinka ah. Boqolkan qofood ee canshuur bixiyaasha ugu badan dalka Ingiriiska ayaa sanadkan waxa ay guud ahaan u bixin doonaan adduun lacageed oo gaarayo 5.7 bilyan oo geniga sterlinka ah. Halka warkakiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.